hoteelada ku yaala dalka Ingiriiska ee la dejiyay dadka muhaajiriinta ee magangeliya doonka ayaa waxa buux dhaafiyay jiir iyadoo cuntaduna aanay fiicnayn tanoo keeni karta xaalad caafimaad darro sida lagu ogaaday cilmi baadhis la sameeyay oo daabacay wargeyska The Guardian ee ka soo baxay magaalada London. dhibaatada kale la soo wariyayna waxay tahay in qoys ka kooban 6 qof la isugu geeyo hal qol oo aan qaadi karaynin iyadoo ay jiraan dad la nool xaalada caafimaad kuwaas oo aan helin adeegyada caafimaadka Ingiriisku bixiyo. xafiiska arrimaha gudaha ee Ingiriisku waxa uu sheegay in lacag dhan 380 milyan oo gini ay ku kharash gareeyeen hoteelada ay degan yihiin dadka muhaajiriinta intii u dhaxaysay bishii Sebtembar ee sanadkii 2019 ilaa bishii August ee sanadkii hore 2024. dawladdu waxay doonaysaa inay albaabada u laabto hoteelada la dejiyay dadka magangeliya doonka waxaana dadkani loo rari doonaa guryo ku yaala xeryo military oo ay leeyihiin ciidamada Ingiriisku. lacagta balaayiinka dollara ee dawladdu ay u qorshaysay dadka ay dejisay hoteelada oo soconaysay muddo 10 sano oo ka soo bilaabmaysay 2019 ilaa 2029 ayaa la sheegay in si khaldan loo maamulay iyadoo muhaajiriintu aanay helin adeegyadii loogu talagalay. 37,000 oo qof ayaa dawladda Ingiriisku waxay dejisay in ka badan 200 oo hotel oo ku kala yaala magaalooyin kala duwan. dadkani inta ay helayaan sharciga deganaanshaha waxa mamnuuc ka inay shaqaysan karaan iyadoo qaar ka mid ah dadkaasi oo si hoose u shaqo tagay dawladdu tallaabo ay ka qaaday kadib markii la ogaaday. shirkadda Telesom waxay qiimo dhimis ballaaran kugu samaysay internetka mobilka. internetka bilaa xadidin waxa lagu sameeyay qiimo dhimis 25%. hadda waxaad ku helaysaa $15 oo kaliya. shirkadda Telesom waxay sidoo kale 20% qiimo dhimis kugu samaysay internetka iyo ku hadalkii bilaha ah ee wada socday. hadda waxa laga dhigay oo kaliya $20 si aad ugu shubato internetka aan xadidin waxaad ka wada helaysaa dhamaantood oo aad doorataa xidhmo unlimited ah. macmiil ka faa'iideyso qiimo dhimista ballaaran ee lagu sameeyay.